jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ayaa ku guuleysatay dacwad dhawaan ay ka fureen xarunta sharci bixinta qaxootiga ee South Africa ee loo yaqaano Home Affairs iyadoo xaruntaasi la xiray 29 Juun ee sanadkan 2012 jaaliyadda Soomaalida ay weheliyaan jaaliyado kale oo Afrikaan ah ayaa qabsaday abukaato dooda xuquuqda qaxootiga waxaana garab taagnaa hay'adda qaxootiga adduunka Human Rights Watch iyo hay'ado kale dacwadani ayaa ka socotay maxkamadda sare ee Cape Town waxaana dacwadani goobjoog ahaa madax ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaasha waaxaha sharci bixinta qaxootiga South Africa dhowr jeer ayay hay'adani isku dayday in albabada isku dhafto xarumaha sharciyada laga qaato iyadoo dowladda Koonfur Afrika ay saxiixday heshiiska Geneva ay dhigay inay damaanad qaadayso xuquuq kasta oo qof qaxooti leeyahay yaasiin cali qawaar oo kamid ah dadka dacwada furay u waramayay TV-ga caalamiga Universal ayaa sheegay in guushani ay aad ugu farxeen Soomaalida Koonfur Afrika ilaa iyo Home Affairs xilliga la xiray ilaa iyo hadda ay daba joognay waxa inoo sugnaatay in aan gudbino human rights-ka sida ay kamid yihiin ururada ay kamid yihiin Legal Resource Center iyo UTC kuwaasi oo u dooda had iyo jeer xuquuqda qaxootiga iyo sidoo kale UNHCR waxaan ku meelahay hadiisa waxaan ku guuleysanay ugu dambeyntii in la furo xaruntii qaxootiga Home Affairs dib loo furo sidii ay dadka u qaabili jireen ay u qaabilaan haddana waxaa dhawaan lagu soo furi doonaa xafiiskii ay ku soo noqon doonaan si toos ah ayna shaqada u qaban doonaan si kastaba ha ahaatee boqolaal Soomaali ayaa toddobaad kasta sharciyo ka qaata xarunta sharci bixinta Midland ee magaalada Cape Town iyadoo arrintani ay walaac xooggan ku abuurtay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qaxa ku jooga Koonfur Afrika Maxamed Deeq Muuse Nuur deeq darajo Universal TV South Africa